aamin wadankaaga waa barnaamij ay iska kaashadeen dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo iyo hay'adda caalamiga ah ee Care International. waana barnaamijkii ugu horeeyay noociisa oo kale ee laga hirgeliyay Somaliland. waxaana uu barnaamijkani fursad u siinayaa dhalinyarada lafahanteedu inay qayb ka noqdaan xal u helidda aafada tahriibta. waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo iyo tababaro isdaba joog ah oo loo qabtay dhalinyaro kala duwan oo looga gol lahaa doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karto xal u helidda aafada tahriibta. ayaa waxaa maanta tababar uga furmay magaalada Burco arday ka kala socota qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Burco. waxaana ardaydan lagu tababaray sidii ay u sameyn lahaayeen documentary filmyo kooban iyo agabkii ay ku shaqeyn lahaayeen oo barbilow noqon doona ololaha barnaamijka aamin wadankaaga. marka aynu ka hadlayno filimka ama la sameynayo film ama documentary film waxyaabo badan buu ka kooban yahay. markaan film sameynayno ma macnaheedu in waxaynu inagu jecelnahay inuu iska soo duubano, balse waa inaynu ogaanaa filimku inuu raadayn ku yeelanayo isla markaana uu saameyn ku yeelanayo qaybihii kala duwanaa ee bulshada. filimka markaad sameynayso waxa door muhiim ah ka ciyaara scripting waxay markaynu doonayno inaynu dhalinyarada ka wacyi gelino tahriibta waa inaynu fikirkii hal-abuurkii la nimaadnaa. maxaa ka mid ah markaa dabeedna waa inaad fikirkii qortaa. markaad dhibaatadii aragto markaad maskaxdaada ka soo koobiyeyso markaad qorto waxaa second stage-ka aad mari doontaa waxa weeyaan inaad wixii duubto. wixii aad qortay ee quruxda badnaayee haddii la akhriyo qof walba soo jiidanayay ayaa waxaa la doonaya inaad ka dhigto muuqaal. waxaad mar kasta maskaxdiina ku haysaan oo la doonaya inaad xusuusnaataan. waxaad xuduubaysaan xabadda maskaxda ku seef gareeya sidaad wax u aragtaan. marka waa inaad ku xisaabtantaa marka aad filimka sameynayso qaybaha bulshada kala gedisan ay ka kooban tahay. hadday social media inta isticmaashaa, hadday dad waaweyn ahaan lahayn, hadday dad yaryar ahaan lahayn, haddii da'diinoo keliya ku xisaabtaminina, hadday aqoon-yahan ahaan lahayd iyo haddii mid imika bartay uu ahaan lahaaba wax isla wada jaan qaadi kara. waxaana sidoo kale lagu tababaray ardaydan hababka loo sameeyo fariimaha wacyigelinta kooban iyo qaababka kala duwan ee bulshada loogu gudbiyo. waxaan barinaa filimka message-kiina fariintiina sidoo gaarsiinaysa qofka waa fariin kooban oo yar. waxa laga yaabaa filim 5 minutes waxayna duubteen laakiin 3 minutes ama 2 minutes kaliya aan ka rabin. waxaan idin bariyaa sidee filimka loo yareeyo ama sideed u koobtan idinkoo isticmaalaya telefoonkiina. Telephones-kan aan idin diyaarinay kaameradooda quality-ga aad iyo aad u fiican yahay. waxaan tusinaa different features. wuxuu leeyahay meel laga shido light-ka, meel laga naaquso. inkastoo tababarkan lagu guuleystay in ardaydii lagu tababaray xirfadan ay awood u yeesheen sameynta filmyo kooban oo xambaarsan fariimo ka hadlaya aafada tahriibta, ayaa ugu dambeyntii waxaa tababarkan soo xidhay mas'uul ka socday hay'adda Care. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sida tan: فيديو معقولة أو احترله أو ضلك احترله إنه سمينا الدنيا كفائدة موبايل هذا كليب يردوبتان هذا يسوع قارن يفرحان كليب كاسو كليب كاير عدد وسيان عدد أركان وحلاقيها بين السرفاف كريسة دنيار عضو فربضن محيط التهريب لها وأركيا أرديدي شمال عبد الناصر أرديدي شيخ إبراهيم محمد علي أو كفر حسن محيط قاب كأرديدو دو سرفاف كرينيان موبايل هذا اللي ديسيه muhiimadu ma aha inaynu mobile la qaybino, laakiin muhiimadanu way ka weyntahay mobile iyo waxan way ka weyntahay. muhiimadanu waxa weyn inaynu dadka dhalinyarta ay wadankoodii aamini waayay maskaxdoodu fadhiyo weeday inaynu ka dhaadhicino in wadankoodii still uu safe yahay, wadankoodii still uu baahan yahay maxay dhalinyar u shaqeyso oo bedel. si fiican baan oo dhageysateen hodan iyo farxaan iyo farxiyo way mahadsan yihiin. barnaamijkeenina intaas ayuu inoogu dhan yahay. si fiican baan inuu wada shaqeyn doonaa insha Allah kulan dambe iyo iskuuladeeni.